waxaad nagala socotaan Central Somali TV ku tegay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa halkaas uu kaga qayb gelayay shirweynaha ugu furmay OAU-da isla markaana khudbad xasaasiya uu ka jeediyey isagoo dhinacyo badan taabanaysa isagoo halkaas ku caddeeyey mowqifkiisa uu ka qabo damaca Itoobiya isagoo ku caddeeyey halkaa hadallada macmacaan ee uu sheegayo Abiy inayan ahayn mid xaqiiqada ku salaysan. Madaxweynaha ayaa si geesinimo ah halkaa uga jeediyey codkiisa isaga oo ku balballaadhiyey damaca Itoobiya ay ka rabto badda Soomaaliya waxa uu ku saabsan yahay iyo sida shacabka Soomaaliyeed ayaan marnaba u oggolayn. Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu caddeeyey warkiisii wuxuuna tafatiray waxa ay Soomaaliya u baahan tahay wuxuuna halkaa ka jeediyey khudbad xasaasiya oo dhinacyo badan taabanaysa taasoo uu ku caddeeyey inayan marnaba Soomaaliya ayan wax damaca Itoobiya u dulqaadanayn. Halkaas waxa uu uga jeediyey madaxweynayaashii Afrika ee halkaa ku kulansanaa wuxuu hordhigay mowqifkiisiyo cad. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa geesi Ilaahay u soo diray ummadda Soomaaliyeed waana halyey hogaamiye saxa ee dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo dhulkiisaba aaminsan inuu difaaco. Madaxweyne xasan sheekh waxaa halyey taariikhda galay waxa uu Addis Ababa ka dhigay ama khudbaddii uu halkaa ka jeediyey waxay noqotay khudbad hadal hayn badan dhalisay taasoo aynu ugu mahadcelinayno madaxweynuhu tallaabada uu qaaday. waxa weeye madaxweyne ka horreeya ma qaadin tallaabada noocan oo kale ah dala ishayaan intuu tago inuu mowqifkiisa ka caddeeyo waxa shacabka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya rabaan inuu halkaa ku bayaamiyo dhagahooda ku shubo madaxdii Afrika ee halkaa isugu timi taasoo aad iyo aad uga xumaaday Abiy Ahmed isla markaana uu go'aansaday inuu iskaga yimaado shirkii halkaa ka socday. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo ku soo dhaafay wafdi heer ra'iisul wasaare ku-xigeenku uu hogaaminayo. Madaxweyne xasan sheekh maanta wuxuu caddeeyey oo halkaas uu wacdar ka dhigay inuu yahay hogaamiyaha saxda ah ee Soomaaliya u baahan tahay. Madaxweyne xasan sheekh wuxuu halkaas ka caddeeyey oo madaxweynayaashii Afrika uu u caddeeyey sida uu dalkiisa ay uga go'an tahay inaan in yaroo xadgudubana lagu samayn karin. Madaxweyne xasan sheekh waa maanta wuxuu inaga mudan yahay haddaan ummadda Soomaaliyeed nahay inaannu taariikhdiisa iyo iskarabtaag aynu u muujinno. wixii Addis Ababa ka dhacay waa wax guulo u soo hooyey ummadda Soomaaliyeed waa waxa dhabarjab ku riday cadowga Soomaaliyeed. Marka waxaa halkaa ka muuqatay dowladda Soomaaliyeed inay hore u soconayso oo ay higsanayso halkii waxaynu ahaan jirnay. sidaa darteed ummadda Soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa inay madaxweynahooda isgarab taagaan inay geesinimada u sameeyey inay isku garab taagaan inay shacabku mudaharaad uu halkaa uga soo bannaanbaxo gobollada Soomaaliya oo dhan kuna muujiyaan inaan dalkeenna iyo baddeenna toonna aan la Itoobiya damci karin. sidaa aawadeed waxaa laga rabaa ummadda Soomaaliyeed inay isu taagto sidii madaxweynaheenna ay isu garab taagi lahaayeen dalkeenna inaan u difaacan lahayn. waa baadhitaankii ay sameeyey Somali Soma TV Soomaaliya Central TV baadhitaankii ay sameeyeen waxay ku caddeeyeen in madaxweynuhu tallaabadii uu qaaday ay ahayd tallaabo sharciga waafaqsan sharciga caalamka iyo ka Soomaaliyaba ka turjumaysay. madaxweynuhu tallaabadaa uu qaaday waa tallaabad geesinimo ah waa tallaabad horumarnimo ah waa tallaabad caddaynaysa waxa uu rabo inuu Soomaaliya dib ay u hanato waxa ay ahaan jirtay. halkaas waxaa nooga cad oo aanu caddaynaynaa madaxweynuhu inuu yahay hogaamiyihii saxda ahaa ee loo baahnaa. Itoobiya inay ku wana qaadato wixii 7 ku dhacay Soomaalidu inay weli ay halkaa ka taagan tahay ayaan oggolaynaa dalkooda in la soo farageliyo in ay baddooda si dhayala lagu qaato taas waxay caddaynaysaa Soomaalidu
inay weli taagan tahay oo ay nooshahay oo ay awood jirto tahay oo ayan damac dowladaha deriska ay marnaba ayan qaadanayn waxayna heleen Soomaaliya madaxweyne ku hogaamiya arrimahaas oo ay uga fadhiyaan inuu meel mariyo wax kasta oo ay shacabka Soomaaliyeed ay jecel yihiin madaxweyne xasan sheekh ilaahay ha daaye wuxuu go'aansaday inuu Soomaaliya ka dhigo barnabada oo xasiloon oo lagu soo hirto oo caalamka wax la qaybsata wuxuu ku caanbaxay inuu la dagaalamo wax allaale wixii dowladda Soomaaliya iyo Soomaalinimadaba aan oggolayn inuu la dagaalamo inuu ka safeeyo dalka Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh waad aragteen wixii uu ku sameeyey al-shabaab inuu dalka intiisa badneed ka xoreeyey inuu isagu u adeegsanaya macawisley iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamadii qaranka ee Soomaaliyeed ayuu wuxuu ka safeeyey meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah inta hadhana wuxuu ku tala jiraa inuu dhammaystiro oo uu dalkoo dhan nabad ka dhigo ma oggolaanayo in ay soo farageliyaan dad shisheeye ama dowlado shisheeye xasan sheekh markii la arkay waxqabadkiisa iyo halka uu wax u wado iyo siday uga go'an tahay inuu Soomaaliya dowladnimo uu ka dhaliyo ayaa la ducaynayaa oo marba dhinac laga keenayaa dowladda Itoobiya waxay qaadan laadahay Soomaaliya sida ay ugu soo noolaatay ee al-shabaab isaga celisay ee caalamkoo dhan ay arkayaan in dowladdani ay dowladdii tahay soo celinaysa Soomaaliya